maanta waxa weeyaan maalintii labaad ee aan wadno adeeg bixinta caafimaadka ee ka shaqeynaya dhakhaatiirta ka howlgala cusbitaalka guud ee degmada Arabsiyo deegaankan joognaana waxa weeyaan deegaanka Daanyaale ee degmada Arabsiyo waxay ka bilaabantay saaka shaqadu halkan maanta waxa lagu eekaa hal deegaan oo kaliya halkii deegaan ee maanta u lahaa hawshan waxay noqdeen Daanyaale waxa dadka deegaanku aan aad ugu mahadcelinayaa sida quruxda badan soo diyaar garoobeen una sii diyaar ahaayeen wana qayb qaateen hawshan iyo dhakhaatiirta caafimaadka ka howlgeliyay cusbitaalka guud ee degmada Arabsiyo ee iyaguna u hagar baxay dadkoodii wali waxaan wadnaa nidaam daadejinta ama maamul daadejintii xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo garwadeenka ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan wadnaa waajibaadkii dheeliga ahaa ee naloo igmaday waxaan wadnaa in dadka la baro wali dawladnimada iyo quruxda dawladdu siday tahay inuu qof kasta adeegii caafimaadkiisa uu ku helo halka uu joogo ma noqon doonto sidaan maalintii hore sheegay caafimaadka wax ku kooban waxay iman doona in iyadana round kale la sameeyo dhinaca waxbarashada waxay iman doona round in la sameeyo dhinaca beeraha waxay iman doona wacyigelin dhinaca diiniga ah oo wasaaradda diinta iyo awqaafta degmada ayaguna bilaabi doonaan nidaamka dawliga waxaan ka kaxayn doonaa xarunta degmada waxaanu geyn doonaa insha Allah maalmahan soo socdana tuulo kasta oo hoos timaada degmada Arabsiyo insha Allah waxaan rajaynayaa in qurux badan noqon doonto insha Allah waxaan rajaynayaa in Ilaahay nagu garab geli doono dadaalkaas aan wadno wax qurux badan oo midha dhala sida anaga noola muuqatay ma wali waa sida in ay insha Allah sida quruxda badan ee aanu ka filayno inay noo ahaato inay ka sii qurux badnaato halka inaanu ka sii siyaadinana insha Allah oo waxaan rajaynayno waxaan baan ugu bushaaraynayaa guud ahaan degmada Arabsiyo qof kasta wuxuu leeyahay goob uu kaga beegan yahay caawinta degmadiisa caawinta dawladdiisa qof kasta inaanu sagran itaalka uu yariyahay intaanu soconay dawladnimadu kulli waxba ka dhiman waxay laakiin u taalaa waxa weeyaan shacabka ku nool degmadu sidii dawladdu isku barbartaagaan sidii dadaal u muujiyaan fikirka saliimka ah ee keena anaguna waxaanu sameynaynaa fulinta implementation baraniguna planning-kiina waanu dejinaynaa wax badan marka anagu waxaanu qorsheynaa waanu fulin qorsheyo badan oo kale oo ra'yiga dadweynaha ku dhex jiraan insha Allah inay iyaguna keenaan anaguna aanu noqono fuliyayaasha waayo dawladdu waa shacabkuna iyaga dawladda wabillahi tawfiiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadku wada cawdaane midnaan caynaynin oo caradiina hala iseeyo